السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركل السود واضح أدي هذا ومهد سنتهين مانتا وثلاثة وأنا صدق حيل لباتنك بيش ديسمبر إلا بيتبنات سنة كلابا كون إيشان يا لباتنك مقال كانوا حربا إلى ندي كل وداقو قدوميها قبل كمينيسوتا ماير كمجالة مينيابوليس يا ماير كمجالة سين بول يا كار كمدا هجامي ديمجد يا قيبها كالدواني برشة يحبناها برلمان كإلا صوت دورته oo shir jiraa'id maanta ku qabtay magaalada St Paul ayaa waxay aad uga hadleen howlgalka ciidamada ICE ku dhawaad muddo bil ah ay ka wadaan magaalooyinka mataana ee St Paul iyo Minneapolis waxay yiraahdeen inta nagu filan hadda kadibna waxa laga yaabaa in qof si halis ah ugu dhaawacmo amaba uu ku dhinto howlgaladan socda arrimahaasi waan idin la wadaagayaa iyo sidoo kale 6 wiil oo dhalinyaro ah oo maqaayada Soomaali ah iyo meel u dhow masjid shalay laga qabtay magaalada Seattle ee gobolka Washington State howlgaladii ciidamada ICE ay ka wadeen magaalada Columbus Ohio oo sidoo kale dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah lagu qabtay ayaa qaarkood waxa la soo geliyay website-ka ciidamada ICE iyadoo la leeyahay qaarkood waa dambiilayaal oo dambi aysan lahayn dusha laga saarayo arrimahaasina waa idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada عمرada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas 1 hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina looga halweyn karo xilliyada salaada 2 gaadiid ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda Islaamka 3 barida qaabka loo guto acmaasha umrada 4 umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ma awoodin 5 haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii dheer fadlan waa WhatsApp number eber 96454592 mahadsanidin waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaaraynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan quraanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa kamid ah quraanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaanad kala xiriiri kartaa gmailka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda waxaan ognahay magaalooyinka mataanaha ee St Paul iyo Minneapolis in toddobaadkii afraad howlgallo ay sheegeen in dawladdu ay ku bartilmaameedsanayso dambiilayaasha kuwa ugu xun iyo dadka sharci la'aanta inay ka wadaan magaalooyinka mataanaha ee St Paul iyo waliba Minneapolis waxa la arkay xitaa dad muwaadiniin Mareykan ah in la qabtay qaarkood la xiray kuwana sidoo kalena muddo su'aalo la weydiinay haddaba maanta waxa shir jaraa'id qabtay gudoomiyaha gobolka Tim Walz waa gobolka Minnesota maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey maayarka magaalada St Paul Melvin Carter qaar kamid ah xubnaha dimuqraadiyiinta ee baarlamaanka gobolka Minnesota ku jira iyo qaar kamid ah qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hogaamiye diimeedyada waxa hadallo kulul halkaasi ka jeediyay gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz hadalladiisu waxa uu inta badan ku bartilmaameedsanayay madaxweyne Trump waxa hadalladiisi kamid ahaa markii uu ka hadlayay howlgaladan ay ciidamada ICE ay ka wadaan magaalooyinkaasi toddobaadkii afraad iyadoo hadda muddo bil ah ay ku dhow yihiin waxa uu yiri arrintan lagu bartilmaameedsanayo bulshooyinka kala duwan ee gobolka Minnesota degan waxa ay qatar gelinaysaa dad Minnesota u degan oo aan waxba galabsan xitaa ciidamada ammaanka sugaya ee booliska ayay qatar gelinaysaa marka wuxuu yiri maamulkan Trump hadda nooma yeerin karo waxaan ilaalinaynaa ciidamada ammaanka sugaya maxaa yeelay ayuu yiri dadkii January 6 sanadkii 2021 Trump taageerayaashiisa ayuu ka hadlayaa markii Congress-ka ay weerareen dadkii Congress-ka weeraray Trump waxa uu leeyahay macnaha adigii dadkaada ku amray inay Congress-ka weeraraan isla markaana qatarta galiya ciidamo boolis uu yiri oo qaarkood ay saaxiibada yihiin gudoomiyaha gobolka ayaa dhahaya marka dadkaasi nooma yeerin karaan ayuu leeyahay in ammaan ay sugayaan sidaas darteed waxa uu yiri naloo maamulka nooma yeerin karo in iyagu ay badqabka dadweynaha ay wax ka qabanayaan wiil Soomaaliya oo shalay ciidamada ICE istaajiyeen oo sidoo kale goobta joogay ayuu soo qaatay isagana wareysi aan la yeelan doono oo aan idin soo gudbin doono waxa uu yiri shalay ayaa la qabtay waana la haraasgay su'aalo ayaa la weydiiyay isagoo shaqadiisa u sii socda marka waxa uu sheegay waxa aan Minnesota ayuu yiri dadka dambiilayaasha ah
waan maxkamadeynaa dacwad ayaan ku soo oognaa ayuu yidhi inaga oo aan eegaynin midabkooda amaba halka ay ka imaadeen amaba in ay sharci leeyihiin ama aysan sharci lahayn marka waxyaabahaasi aan idiin soo sheegay ayuu yidhi anagoon eegaynin ayaa qofku haddii uu dembiile yahay gobolka Minnesota dembigiisa aan ku soo oognaa kulay wuxuu ka hadlayaa arrimihii Soomaalida iyo lacagihii la lunsaday marka waxa uu sheegay anaga community ma ogolaanayna ayuu yiri in communitygeena arrimo siyaasadeed loo isticmaalo wayna iska caddahay ayuu yiri waxa madaxweynahan uu sameeynayo maxaa yeelay waxa uu dagaal kula jira ayuu yiri gobolada dimuqraadiga ama siyaasad ahaan ay iska soo horjeedaan sidaas darteed ayuu communityyadan kala duwan u qalqalgelinaya waxaana uu sheegay dadka siyaasad ahaan isaga aysan taageersaneen ama raacsaneen siyaasadiisa ayaa waxa uu doonaya in uu target gareysto communitygaasi waxa uu sidoo kale sheegay Trump inuu doonayo dadka inuu ka weeciyo dambiyada uu isagu galay oo hadda la baarayo marka gudoomiyaha gobolka Tim Walz oo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri Public safety is strongest when we focus on serious crimes and when communities trust they will be treated fairly with dignity, they will be given due process, and the rule of law is supreme. We're seeing none of that from the current administration. It's not about keeping people safe. It's about generating fear. It's about generating headlines. It's public safety by political theater. And not only is it not keeping people safe, it's putting people at risk. It's putting the people that they say they're targeting at risk. It's putting other innocent Minnesotans at risk. It's putting law enforcement at risk. And I will not be lectured about protecting law enforcement for the people who instigated January 6th and attacked people who were my friends of Capitol Police. Right. So Minnesotans will not be lectured by this administration about anything, especially about public safety and human decency. We saw yesterday a U.S. citizen, a member of SEIU, was racially profiled and harassed by ICE agents right here in Minneapolis. In Minnesota, we'll prosecute criminals because of their actions, regardless of their race, their background, their immigration status. Right. But we'll never target people because of those things. The distinction matters. When law enforcement is driven by profiling or intimidation, it undermines all the trust in the community. It makes us less safe, and it pulls resources away from doing the real work of crime. Minnesota is not going to play along with their strategy. Will not allow our communities to be used as political theater or for their personal benefit. I think it's pretty clear to all of us exactly what this president is doing. He's targeting states and communities that he has a national political fight against and that he doesn't agree with. It's also a distraction from his own personal crimes that are out there being investigated while he's harassing others. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa waxa uu yiri arrintani waa waxa dhaca marka dawladda federaalku ay dadkeeda soo weerarto ay ku soo qaado weerar ka dhan ah dadkeeda ayuu yiri sidoo kalena tani waa waxa dhaca ayuu yiri marka la target gareysto community ama bulsho iyadoo faa'iido laga raadinayo siyaasadeed ayuu ula jeedaa tanina waa waxa dhaca ayuu yiri marka la iska indhatiraya xaqiiqda jirta sidoo kale waxa uu yiri arrintani waa waxa dhaca marka aan la qaran doonin hadda wixii ka dambeeyo qofku in uu cadaannimadu ay sareyso waa tii xaddi madaxweyne ku xigeenka Mareykanka shirkii Turning Point USA oo ninkii cunsuriga ah ee la dilay September in lagu dilay Utah uu iska lahaa haddana xaaskiisu ay madax ka tahay Turning Point USA khudbadii uu ka jeediyay waxa uu yiri qofku cadaanka hadda kadib ma ahan inuu raaligelin ka bixiyo cadaannimadiisa macnaha waxa uu leeyahay wadankan cadaan ayaa iska leh cadaanta ayaa sareyso marka gudoomiyaha gobolka Minnesota waxa uu leeyahay hadda waxay u muuqataa inaan bal qarinaynin in cadaannimada lagu faanayo oo maamulkan uu banaanka dhigtay waxana sidoo kale uu sheegay hadda waxay ka hadlayaan fikradaasi ah in qofku cadaannimadiisa uu san raaligelin ka bixin sidii markii hore dhici jirtay sida madaxweyne ku xigeenka uu sheegay qof kasta oo ku jira qolkan waa og yahay waxa ay sameynayaan laakiin waxa uu yiri arrintan nagu filan hadda kadib waxa uu yiri ma doonayna in arrintan ay sii socoto waxaanan doonaynaa inaan ilaalino ayuu yiri communitygeena iyo dariskeena qofku ma ahan inuu ka cabsado in caruurtiisa uu iskuul u diro amaba uu booqdo goob ganacsi ama sidoo kalena meelaha cuntada laga soo qaato uu cunto ka soo qaato marka wuxuu yiri hadda waxaan xaqiijinaynaa in meelahaasi oo idil ay noqdaan meelo nabad ah dadku ay tagi karaan isla markaana aan xaqiijino qofku inuu sameyn karo wixii uu rabo gudoomiyaha gobolka oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri This is what happens when your own federal government wages war against you.
This is what happens when they target communities for their own benefit. This is what happens when they scapegoat. And this is what happens when they no longer hide the idea of white supremacy when you hear the Vice President of the United States talk about now white people won't have to apologize for being white. That's never happened once in my whole damn life. And I think everybody in this room knows what they're doing. So we're here today to say enough of this. We're here today to stand that Minnesota will protect their neighbors, to tell those folks who are out there who are too scared to send your children to school, who are too scared to visit a local business, who are too worried about maybe picking up extra food during the holidays at the food banks. We will do all we can to make those corridors safe for you, to make sure you're able to do what you need to do. dhinaca kale maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey oo isaguna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa waxa uu yiri waxa ay ku marmarsiyoonaysaa dawladda federaalka in heerka dambiyada ee magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul uu aad u sareeyo laakiin waxa uu yiri arintaasi horay ayaan dawladda federaalka isaga kaashanay heerka dambiyadana hadda waxa uu marayaa meeshii ugu hooseysay marka ma ahan in hadda ay ku marmarsiyoodaan in ay diiradda saarayaan in ay dambiga wax ka qabanayaan magaalooyinkaasi ka jira waxana uu sheegay in la xiro qof muwaadin ah oo Mareykan ah isla markaana lagu bartilmaameedsado midabkiisa ama inuu Soomaali yahay ama inuu Latino yahay ama haweeney uur leh dhulka lagu jiido waa toddobaadkii hore markii haweeneydii uurka lahayd dhulka lagu jiidayay arintaasi waxa uu yiri ma ahan arin loo dul qaadan karo waxana uu sheegay in communityyadan loogu marmarsiyoonayo heerka dambiyada ayaan hoos u dhigaynaa iyadoo midabkooda inuu Soomaali yahay ama Latin uu yahay lagu bartilmaameedsanayo waxana uu sheegay hadda inuu cabsi weyn ka qabo oo aad uga walaacsan yahay in sida ay wax ku socdaan ay ka dhalan doonto in qof uu dhaawac qatar ah soo gaaro amaba qof uu geeriyoodo marka waxa uu sheegay in hadda qaabka ay wax ku socdaan arintaasi ay ka dhalan karto wuxuu yiri mana awoodno inaan lumino xubin kamid ah bulshadeena oo arintan darteed aan u lumino maxaa yeelay waxa jira dad iyadu community-ga oo is abaabulay waxa jira oo markasta oo ay meel tagaan ku mudaharaada marka arintaasi waxa ka dhalan karta ayuu leeyahay in qof la toogto ama dhaawac halis uu soo gaaro amaba qof uu dhinto sida hadda ku socota waxaana sidoo kale uu sheegay inay heleen warar sheegaya in ciidamo kale oo dheeraad ah hadda maamulka Trump uu u soo dirayo magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis wararka aan hayno sidaas ay sheeganayuu yiri marka waa kan maayarka magaalada Minneapolis oo isaguna arrimahaasi ka hadlay Right now, because of that partnership, crime is at a near record low, right here on the north side. But here's the point. We do partner with other jurisdictions. We partnered with the federal government, with the U.S. Attorney's Office, with a number of federal agencies to drive down crime because crime was the focus. The difference is that clearly crime is not the focus in these terroristic acts that are coming to our communities right now. Crime is not the focus when you are tearing a father away from his family who has done nothing wrong. Crime is not the focus when you are detaining an American citizen for no reason other than the fact that he is Somali or he is Latino. Crime is not the focus when you're dragging a pregnant woman through the street, and crime is not the focus when you are specifically focusing on communities based on the color of their skin. Where crime is the focus, Minneapolis is ready to partner to keep people safe. But that is not the case with this federal administration right now. And I got to tell you, I am increasingly concerned because of the chaos that is being caused by these ICE agents, that somebody is going to get seriously injured or killed. Somebody is going to get seriously injured or killed. And whether that is an ICE agent or a community member, we all know the tinderbox that could explode because of it. We all know that the federal government is looking for reasons to deploy more and more people to Minneapolis and blue cities around the country. We all know that we cannot afford to lose a single Minneapolis resident because they showed up and decided to protect their neighbors, because they showed up and decided to express their constitutional right to free speech. dhinaca kale waxaan ognahay magaalada Columbus Ohio oo ah magaalada labaad ee Soomaalida ugu badan Mareykanka ay degan yihiin in ciidamada ICE ku dhawaad muddo toddobaad ah hadda howlgal ay ka wadaan qaar kamid ah dadka ay qabteen oo ugu tilmaameen dambiilayaasha kuwa ugu xun dad Soomaali ah ay ku soo dareen
dad aan dambi lahayn ay dambi u yeelan ciidamada ICE ama dowladda federaalku ay leedahay dambi ayaan ku helnay waxa hadda ciidamada ICE website-kooda ay soo galiyeen qaar kamid ah dadkii ay ka soo qabqabteen magaalada Columbus Ohio waxaana ku jira dad isugu jira wadamo kala duwan oo Mexico Guatemala Honduras El Salvador marka wiilkan Soomaaliga oo Cabdirasiiq Xasan Maxamed ay u qoran tahay kulay Cabdirasaaq ayaa loola jeedaa san u mareyna 43 jir ah ciidamada ICE dambigan ayay u yeeleen waxay yiraahdeen waa qof sharci darro ah oo dambiilaha oo Soomaaliya ka soo jeeda waxaana lagu helay laba dambi oo mid uu ka mid yahay felony isagoo drugs haysta ama iibinaya iyo sidoo kalena criminal trespassing meel aan loogu talagelin isagoo galaya xatooye ayaa lagu helay sidoo kalena falal anshax darro ah ayaa lagu helay marka waxa uu leeyahay taariikh xun oo dhinaca dambiga ah oo ay ka mid tahay in la soo xiray dacwado dhinaca drugska lagu soo oogay waliba ka ganacsigeeda in argagixisanimo lagu soo oogay bulshada uu argagixinayo iyo inuu diiday in la xiro dhamaanba dambiyadaas ay u yeelaan laakiin marka la eego oo online-ka laga eego ninkan waxa uu qoran oo kaliya in traffic violation oo kaliya uu leeyahay oo sharciyada dhinaca traffic-ga uu jabiyay marka intaanoo dambi waxa uu muuqatay in wiilkan Soomaaliga ay u yeeleen dhinaca kale wararka aan ka helayo magaalada Seattle ee gobolka Washington State waxay sheegayaan shalay 6 dhalinyaradii wadanka sharci darrada ku soo gashay in ay ciidamada ICE ay qabteen inta badan maqaayada Soomaaliya ayaa laga qabtay baakinka ayaa lagu sugay waxa aan wararka ugu soo gaarayaan wadada la yiraahdo Tukwila International Boulevard maqaayada Soomaaliya oo ku teedsan in dhalinyaradan laga qabtay maqaayada la yiraahdo Dubai Cafe wiil magaciisa Xasan la igu sheegay ayaa laga qabtay shalay maqaayada la yiraahdo Sahara Cafe isagana wiil dhalinyaro oo Soomaaliya ayaa laga qabtay sidoo kalena Aran Cafe maqaayada la yiraahdo 3 dhalinyaro oo Soomaaliya ayaa laga qabtay wiil kalena masjidka Abu Bakar isagoo u sii socdo ay wadada ka qabteen marka inay traagin kareynayeen ay u muuqataa oo dadkan ay haysteen magacyadooda ama telefoonadooda ay kala socdeen sida muuqata hadda 6daasi dhalinyarada shalay magaalada Seattle ee gobolka Washington State gaar ahaan Seattle iyo Tukwila ayaa laga xirxiray maqaayada Soomaaliya ayaana intooda badan laga qabtay marka howlgalku hadda waxa uu ka socdaa guud ahaan gobolada Mareykanka meel kasta ciidamada ICE waa lagu daadiyay maadaama 10,000 oo ay sheegeen inay qoranayaan ay dhameystireen marka meel kasta howlgalku waa ka socdaa dhalinyarada sharci la'aanta marka ha is ilaaliyaan gobol kasta oo gamida gobolada Mareykanka howlgaladan targetka oo dadka lagu bartilmaameysanayo ama guryahooda ama goobaha shaqada ama meelaha ay u badan yihiin oo ay tagaan lagu bartilmaameysanayo waa uu ka socdaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo